حتى بقرتوي عثمان محمود أنا جوا كل حجرنا ده كيني جريرته بربريجا إيو دتك تماه أذك تاريخ ديري ليه دتك الدنيا وتابع أي جواي سلو تابنا أنا أو حبت هاستو أود أنا هاستو ميا ليلة هاد لكرين هي ودك والو لغسو دولي كونفر والو غسو دولي قبل هذا ده هرجاس دتك لبا بيجي لسو deportation لغسو سمي أما لسو ترحيلي يا أخي بيجي المرب الكلمة وها أبدا جرير iyo Ahmed Madowe oo ummadda nafta u kala Soomaali waxaan cadaalad ahayn ma wada deeqo wadaadadan u sheega iyo hamartak meel kasto tag nin oo jareer oo awood nimanka Slovenia ku jirta ma bano qabaan inaan bini aadan nahay bal aragtida labadan oday iska fiiri كنتي wanaagsan kula soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo diiradda ku saarayna toddobaadkan haddii Allah wada la yiraahdo arrin muhiim ah oo salka ku haysa cadaalad darrada iyo sinaan la'aanta ka jirta dalkeena hooyo waayahan dambana si hana qaadaysay qoysas ayagu doonaya sad bursi oo la halkaan annaga iska leh iyo xaqaas ayaanu leenahay ayagoo xaq duudsiinaya ama boobaya dad kale oo Soomaaliyeed oo dadka iyo dalka xaq u leh xuquuqdoodii waxaanu jecelnahay barnaamijkan arrimaha diiradda ku saarno waxaanu soo casuunay shakhsi lagu yaqaano hadal cadaan iyo inuusan ka gambanin meesha targetkiisu yahay barnaamijkan wuxuu taabanayaa qoysas fara badan magacyadooda ayuu sheegayaa ayagoo laga tabanaya cadaalad darro iyo dulmi lagu hayo dadka qaarkood waa ra'yiga uu aaminsan yahay waa ku tixgelinaynaa ra'yigiisa waana soo dhaweynaynaa hase yeeshee intaanan u guda gelin waxaa kaloo xusin mudan mar walba oo ra'iisul wasaaraha ama madaxweynuhu uu noqdo Soomaaliya qabiil hebel uu noqdo waxa dhacda ra'iisul wasaaruhu inuu markaa noqdo qabiil kale labadan qoys ma dhakhtar baa ummadda Soomaaliyeed u qoray ma waxa laga waayay dadka Soomaaliyeed dad kari kara shaqadan qaban kara hufan karti leh aqoon leh shaqadan ka soo bixi kara miyaa qoysaska kale laga waayay maxay ku dhacday labadan qoys inay qori isku tuur inay qori isku dhiib ay ka dhigtaan oo markuu kale noqdo reebel kan kalena uu qoyska kale uu noqdo arrimahaas sidee looga gudbi karaa dhulka qaarkiis dadka ay sheeganayaan ay leeyihiin halkan annaga iskale iyo goobtan annaga iskale maxaa ka dhaba waxa uu aaminsan yahay injineer Yaro oo ah qofka maanta soo cusubay barnaamijkan na qaybka cadaalad darrada ka tabanaya qoysaska Soomaaliyeed in qoyska asaga uu ka dhashay gaar ahaan kuwa degmada Afgooye inay ka badan yihiin labada qoys ee xukunka Soomaaliya isku haya marka kulligood la isku daro وأسوأ هذا الكودي سداء يا ذو قاركتا دودان كقيب فكر هوس نقوله ذاك سي أنا واحد بدنا وقعنا سيدك الصومالي وفكر يا رأي أنا نشوف بدنا مستقبل كنو حتى ما يلسوا دوي إنجنير يرو وأسوأ أرنتان إلى فرنقينية مرة نقول دور برنامج كيكوبان حنقول دور برنامج التحرقة ونجعلها هدتك الصومالية ذني أوجادان إن مردو أي سمنتها قوس كبضنا أي سنجرنين ما دام أن لصمينين تركوب الرسمية أو الوحق الجنيو أن سي مركز لو جان جويو ترى ذاتك يباهذا أي قبان مركز أي نقطه أو قيب شيء هذه على هي السياسة هي خيرات كذلك أنت يسنتاس العنين سد برسيجا اللي جهر تجو ومد الصومالي لو عدالة فلا ضروري وي مركي عدالة له أي دت كان يوم مدارو أي ديبو هشين كلام نلاش شاضي أي تين خذنا ختشن كلام إنجنير رو أديات بنكسر وين يا شرفي كلام إنه نقطة يسولو أديات ولالك واد محسنتاي إن وحن سلام ودريا ومد الصومالي نداوة ملكست أي جوان أديات يودت كان الضوضة خاصة دتك جريرتا أما بانتو إسكو مجاعبان iyo dadka minority-ga gobol cadkaba runtii Soomaalidii kale ay ku dhex jiraan qabaa'ilka isku sheega inay ayaga awood leeyihiin waayo dulanku dadkii waa wada saameeyay laakiin waxa diiradda saaran tahay dadkan jareerta ah aad u moodo in oon xaqba u lahayn bani aadamnimada walaalkay ahlan wa sahlan وقرتي halkaas hadii aanu ka si ambaqaadno engineer dadkan in muddo dheer ayaad u soo doodaysay maxadaan ku arkaba meel walba goob walba isugu yimaado
cadaalad darrada iyo faquuqa iyo dulmiga lagu hayo beeshaas iyo beelo kaloo aad sheegtay iyo kuwo kaloo fara badan ayaad mar walba u ololaysaa waa maxay waxa laydinku faquuqayo xaqiina iyo xuquuqdiina laydinkugu diidan yahay oo laydin leeyahay anagoo reer hebela in ka tiro badan goormaa soomaalida la tira kooboo la ogaaday qoyskiinu inay ka yar yihiin qoysaska kale soomaalida sharfan cabdixakiimo waa su'aal oo laisweydiiyo ninka aqoon-yahanka isweydiiyo ninka wadaadka isku sheegan isweydiiyaan ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogto aragtidaydii xilligii lixdameeyadii wakhtigaas aqligayga xoogaa waa soo koraayay waxaan arki jiray axzaab oo waddanka xukumi jirtay khaasatan ugu awood badnayd xisbigii SYL iyo xisbigan xisbi dastuur mustaqbal Soomaaliya la dhihi jiray ama xisbiyada oo badan ay yiraahdaan digil iyo mirifle marka waxyaalahan u jeedna waxay ahayd anagoo yaran ku soo kornay cid wax boobayso kuraas oo khaasatan awoodda dowladeed ay adeegsan jireen ee ay ku soo bixi jireen leegada yahay waxaan leegada ahayna ma socon jirin aniga kulli uma arko xisbigan Israel inuu ahaa xisb xaq ah oo ummadda Soomaaliyeed wax u keenay wuxuu ahaa qowdu maqashi waxbaha u qaban shanta Soomaali oo ku hadli jiray laakiin ma fulin ma jirto walaalkay tira koob rasmi ah la sameeyay hadde dagaaladii wixii dhaceen wax baan ka leeyahay laakiin tira koob oo la fadhiistay annaga markaan yaryarayn iskuulka aan dhigan jirnay waxaanu arki jirnay dadka xaggee u badan yihiin dadka badnaantooda waxay meesha biyaha u badan baad iyo doog oo ay leeyihiin biyaha u badan yihiin dadka webiyada ag deganna waa dadkan jareerta ah ilaaha ku soo abuuray adigana kuma abuurin cid ku abuurtay ma jirto dad shaqaysanayo wey intii waddankii jiray 19 sano oo Cabdirashiid iyo qoladaas iyo xukumi jireen waddankii gaajo lama arki jirin absolutely beerihooda iska falin jireen malaygooda iska daban jireen guryahooda ay dhisi jireen oo waddankiina wax gobonimadii keeneen ee wax soo saarkiina keeneen dhulka keeneen oo la arki kara la taaban kara waa la diiday marka tira koob ma jirto mana filayno inay dhacayso tira koob haddii aysan tira koob jirin injineere maxay ku dhacday in la yiraahdo idinka waa laynka tira badan yihiin oo dhibic 5 baad tihiin maxay ku dhacday sidee arrintaas ku suurta gashay soomaaliduna ay raalli oga tahay inkastoo bulshadu aysan ogolayn dastuurkana aysan ku qornayn inaad idinku ka liidataan kuwa kale laakiin la yiri xal baa loo arkay fiiri cabdixakiimow horta Soomaalidu يعني جيسي معها سيدا أنا وأركويو جيسي وحالي هذا نيك رونتا شيئا لو متلائم عربسات بيتريح دا وايو سومالي دي مركي لاذا هي أنا قا أبدا هدي هبكا وددكو كلايين ودنكو كبربريين كتر سدان أيقا بدن أما هبية بدن أما دارود بدن أما إيلاي داسا بدن لكن runtii haddii tira koob dhaxsab la qaato la tariyo of course waa inuu ku horeeyaa dastuur oo qof kasta Soomaali ah ka dhahaga gurigiisu ka haga jiiraankiisu ku xiga caalamkana ku xiga ayaa tira koob dhacaysa leegadan waxa ayada ay sameysay tira koobkan ay hor kacday oo la calaameeyay ayagoona dastuur u sameeyay salno u sameeyay ayaa ridihii furtay marka aniga ma arkaayo nin kasto Soomaali ah ama wadaad ah ama siyaasi ah ama oday dhaqameed ah oo aaminsan dadkan oo timaha adag inay xaq leeyihiin waayo ilaahay aboodiisi ayay ka been sheegeen unfortunately tima adkaanta dad fara badan oo qoysas kale ka dhashay oo badan oo tima adag baa jira waa maxay kuwaas waxa loo soo dhaweeyo idinka lidin faquuqay wallahi
horta midaan kuu sheegaa qabaa'ilka oo timaha adag waa noocyo weeye ma kuwan bari degan mise kuwan gobolada dhexe degan ama kuwan maarad gobolada koonfureed degan reer bariga iyo dadka timaha adag taariikh dheer ay leeyihiin waa wada noolaayeen khaasatan qoladan haddaan sheego adag waxba ka qabin cumar maxamuud iyo usmaan maxamuud la yidhaha usmaan maxamuud doonay wadi jireen xiriir waxay la lahaayeen oo commercially ah ay mari jireen ilaa koonfur africa ay tegi jireen ma dadkaas waa isku dhaleen xiriirkoodana maaragtay guursigana wuxuu ku yimid heshiisyay ahayd waa la isguursaday sidii la isku guursadaba taariikhdaasi haddii waqtigeedii ayaan kuu sheegay say isku guursaday waxbay isku dhaleen hataa boqortooyada cusmaan maxamuud annaga waa ku dhex jirnaa dadkeena jareerta ah dhabtiina waa taa qayba ka aydeen waaba nahayba way is og yihiin marka laakiin wax oo maanta la dhihi karo la taaban karo ma jirto masalan muuse boqor oo kale ka soo qaad gabar oo dhalay iskool baa kula dhigan jirnay timaheeda wall street ay marsan jirtay hadday nooshahay hadday dhimatay allah yarxam xaqiiqda taas weeye iskoolka allahan soo baxnay annaga aw muuse boqorna waa bay diidi jiray timihiis maalin kastoo iska xiiri jiray wixii dhaceen waa dhaceen taariikhiyan waa anigu waa noo diiwaangelisan tahay waa u sheegaynaa dadkan oo jareerta ah qabaa'ilka ay dhexgaleen ama ku abtirsadeen xuquuqooda ay heleen waciyaadu billaah waaba laga faanaa waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii aad sheegtay qoysaskaas bariga dega iyo nugaal aad qayb ka ahaydeen maxay ku dhacday inaan xukunka iyo saami qaybsiga inaan qayb ka ahayn waxa weeye cabdixabiib wax baan ku soo xasuusina haddaad waqtiga ii saamaxo waxaa jira maaragtay 1924kii markii arrintii oo jubbaland oo lagu daraayay soomaaliya talyaanigana joogay odayaal oo shaqaysata ah xamaali ah ayaa kismaayo joogeen ay u badnaayeen iyo odayaal kale dagaalama jiray waxaa la dhihi jiray maaragtay shufta lama dhihi jiray magac baa lagu sheegi jiray magaceeda iga maqan markii la yidhi maamulkii jubbaland ayaan rabnaa inaan qaybsano waayo jubbaland 1924 up to 1926 in dawlad gooni ah sidii Djibouti laga dhiga ayaa looga talkay odayaalkayna waa ka bayi diideen odayaalkii kale meesha joogayna ayagana waa diideen nin walba hadalkiisa fiiri odayaalkaas oo I hope Usmaan Maxamuud u badnaayay reer bariga u badnaayeen daaroodka u badnaayeen waxay yiraahdeen annaga awaam dawladnimo ma la qaybsan karo waagar xaqiiqdana taawi marka nasiib bunday gurubadiisu ay koreeyeen waa jireen ingiriisku waa diideen annaga ashraaf baan nahay arab baan ku soo jeedana marka xaq inaan wax ku wada qaybsano ma bayeelaynay waxa dadkii reer goleedkii loo yimi warnimay yahow inta saana yeelayna waxay yiraan dadka maraacayno nimankan cadaalad ma rabaan nimanka islaweyniya ku jirta ma banoo qabaan inaan bini'aadan nahay bal aragtida labadan oday iska fiiri marka Soomaaliya leegada taasay qaadatay leegada waxa weeyaan maaragtay gentle constitution ku dhaxday dalka oo dadkana laga cirbtiro ama laga xayuubo jiritaankooda oo dalka waxay ku dadaaleen jiritaankooda oo dhan u fiiri hadda xamartag meel kasto tag nin oo jareer oo awood oo la dhihi kara haasto ma jiro waxa weeye yani dardaarinkii leegada unfortunately leegadan waxaa soo asaasay sheekh Sagaawudiin waa nin reer Baraawo ahaan jiray Baraawona waxaa deganaa ooji waxa la dhihi jiray wasiguwa ahaan jiray wasiguwan waxa la yiraahdaa mashunguri boqortooyada jirtay taariikhda qorta dhigiino fura marka ala kulli ahwal ma badhiinba cadaaladda wixii ay maqleen istusaan nimanka xukunka laga hayoobiyo awoodday naga wareegayaan yaa akhi awood kasto qaado hadii cadaalad jirto nin kasto waa deeqaya Soomaali waxaan cadaalad ahayn ma wada deeqo
wadaadadan u sheega iyo odayaal dhaqameedka iyo dadkan villa Soomaaliya ay ku kaajaan iyo Axmed Madoobe oo ummadda nafta u kala محمد لكن عدالة ربنا the way of the عدالة وإلا هلا وأكو خصبنا ودن كان كي واي أنا أقول مثلا تيها ترجيس أوكلا كل عادي أوكلا هرجيس تذكر لبا بيجي لصو deportation لصو سماه أما لصو ترحيلي يا أخي دي المرب الكلمة وها أبدا جرير ما له شيء واي لا سعرك إنجنير maxaad ku eedeynaysaa Axmed Madoobe oo aad ku eedeynaysaa adigu waxa weeye deegaankaasi dad baa iska leh qabaa'il baa iska leh yaa ka mida waxa u badanto dadka la leeyahay waa goosha reer goleedka baajuunta iska leh qabaa'il deegaanna waa jiraan look ay degaan oo xaq ku leeyihiin inay ku noolaadaan ay leeyihiin maaha maxaa yeelay Kismaayo hadda ka soo bilowdo Raskiyamboni dhulkaas dhan magacyadan soo wad ilaa maaragtay Juma la Terra di Juma maga ay awow u leeyihiin ma aha reerkan sameeyay meesha why you are going to claim me now markii la yiri anaga Gandhi ayaan la dagaalamay وقوش اللي هذا أوران ودني أو عدالتي تذكر لسكو كانوا أو مارتين نقول بقول ديجان كيسي لقوا احترامه أيان تاسان ودني مركي كان أحمد مذوب لقى صوت شيء رجع مارتي كارثة كوكاتشا الله يرحمه مرحوم كي مارتي محلي حاجي يوسف حاجي أمباشتور أفي يوم مارتي محلي هذا إنجنير كوكالا جرا أو إيجاد هاي سنجري أو جنرال سكرتيري هنجري أي قاعد يصير آمنين وكجرت وزير خارجي إنجليز وزير خارجي كينيا أو ريركاس هاي إذا ريركاس ماين لكن ريركاس تاسع لقوه الشيء قبل بالله في دبي أحمد بدو أود لصوصية أسوأ قربان لقوه هاي كسمايل كان محل الربي أضياش إنه كانوا شن بقول أرجي أي أفر كشيء أحمد مدو محنو إذينين إيشك انجينير ina eedeysid oo aad dhaliilo u soo jeedisid xaq waa u leedahay laakiin waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheego eedan waa mid injineerka asaga uu garwadeen ka yahay anagu kuma waafaqsanin laakiin xaq wuxuu u leeyahay inuu eedeeyo uu doodiisa soo bandhigo oo aan la caburinin waana soo dhaweynayna waa gartay gabagabadii baan ku soconaa sidee cadaalad loo helaa oo xaqiina idinku aad u heshaan haddaad tihiin beeshaan aad sheegtay beeraha kale oo aad wada degtaan ama dhulka wadaagtaanna aad xaqiina uga heli kartaan ayadoon laydin faquuqinin ayadoon laydin dulminin ayadoon magacyo foolxun laydinkugu yeerinin oo ka dhan islaamnimada iyo soomaalinimada iyo akhlaaqda cabdixafiidow waxaan kuu sheegaya daqiiqad yar haddii aniga dheeraad aan ku darsado aniga faquuq ma aaminsani مثلا كسوقات فاطمه محمود قبر لديه جري او ريرك عثمان محموده رير قال كعيود عبد الرحمن بيحي iyo maartay ragi kale reer bariga ah ani iskuulka arabtan dhigan jirnay wallahi ilaahay iga sareeya haweenadii imtixaanada iyo ko reer baydhabo ku jireen hal gurigan seexanay waa is caawin jirnay waxa la sheegay maskaxdeena kuma jirin ba still I believe this marka faquuqan wuxuu istaagi karaa Soomaalina ooga bixi kartaa in la helo doorasho dhab ah oo xalaal ah how horta dhibaatadan la soo keenay ana waxba caawinooya adigna waxaad sheegayso anaa tira badan census ha noqoto wax kasta ha noqoto waa in la fadhiistaa ayaantii shirkii xamar laygu yeeray oo dastuurkan la asaasay waxaan aaga digay ummadda Soomaaliyeed dadkan soo duulan arintoodii meel hala saaro oo awla jeedid wadanka waa lagu soo duulay koonfur waa lagu soo duulay gobolada dhexe reer Puntland waxaasi maal xoolihii dawladda la adeegsaday maxamed siyaad baran awoodo adeegsaday koonfur lagu duulay Kismaayo qabiil baa la siiyay gedo qabiil baa la siiyay
bayrawi dhulka qabiil baa la siiyey waxa la siiyey waxaan la taabanin mudug iyo goboladan maaragtay puntland iyo kuwaas waa loo taaban waaye goboladaas dadkii adduunya wataaba ayaga waaye see loo taabana ano oo xabad haysto awood aan haysto miyaa layla hadli karaya nin cusmaan maxamuud dhulkiisa مثلا كسوقات مثال بنك تسا لما كيس بنك سينا جبلاند بدهان لسكو هيستو سو قطرة أو كذا هذه وايد حق رونتاي سو قطرة إني سومالي لا يواد أكتاي محلو بومبوني واي يا أما جبلاند لو بومبونو نويا بركي هذه واحد كسيدة آن غير قلت بس كلا أنا قد أقول كهسي أبوكينا نوغو تجي كم جرى زماني وأضي نصيب بندوها قبل ما أردنتي أسق إياه عثمان حبلو الذي جرى نجا كردنتي كنديد أهل كهاي مارجو قال شرا لا بأضي للصومالي هالجميال أهل قال شرا كردنتي أضي يجوها ما هو كهاس تمان وحالي 0.5 بالي يا استرين أذاي هدي